السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رير سومالان يوم الضي إسلام كيبو إيدي السلام يمير كستو أجوك تنبع ورهادها وحا صعد بوق كتاغن قلبيت كالسومالي لان إيا الدولة دي سومالي لان أو اسماري لا أيا إيم موقضة كي الله يبارون تتشعله دولة وحي ويكتين يرقر درانت si way u gardarantay dee sina uma gardarna horta si uma gardarno oo de waa dawlad baa la yidhi oo waxaa la yidhi meeshan adaa dawladka oo mas-uulka ah sina waa u gardaran tahayoo dad bay dee macnihii doonaysa inay dawlad u noqoto aan dawladnimadii garanayn waxay ahayd marka hore shacabka dhulka degan iyo ummadda Somaliland degan in dawladnimada loo macneeyo waxay iila eeg tahay inay wax kor ka socdo ummaddu aanay fahansanayn ay tahay sababtu tahay haddii dawladnimada la fahansan yahay sida looma dhaqmeen qofka dooratay eed codka siisay ee dawlad aad macnihii ku sheegtay inaad haddana tira halkaa anigaa leh halkaa iima soo dhaafi kartid halkan anigaa xukuma dawladnimadu taa maaha taa waxay muujinaysaa inaanay asliyanba dadku dawladnimo fahansanayn gobol kasta iyo meel kasta ay joogaan marka horta dadka waxaan odhan lahaa dawladda waxaan odhan lahaa wacyigelin badan sameeya dawladnimada macnaheeda macneeya ummadan dhowr iyo 30 sano iyo ka horba dawladnimada sheeganaysay ee haddana aad moodo inaanay u bilownayn oonay dawladnimo waxay tahay waxba kala socon wacyigelin fara badan bay u baahan yihiin tan macnihii sidan dawladnimo maaha haddaba inta dadka la wacyigelinayo ee dawladnimada loo sheegayo dawladda waxaan kula talin lahaa inay halkay gacanta ugu jirto iyo halkii laga ogol yahay in wax ka qabato shacabka reer Somaliland mid baan u sheegi lahaa haddaydan dawladnimada ogolayn dawladana ha ka cabanima hadhow yaan la cabanon la odhan gobol hebel waxba lagama qaban iyo dawladdi meeday hadday dayina dawlad ilan waa diideene mid kalena way jirtaa dawladda hay kala dambeeyay ee Somaliland waxay runtii ahaayeen dawlado dhan ka raran tanina sidii bay wada dawladaha Somaliland waxaad moodaa inaanay bariga Somaliland u dhalan inaanay dawlad u ahayn dadka reer bariga Somaliland waana kuwa ugu dhow u hoggaansamaan dawladeed waa dadka ugu dhow u hoggaansanaanta dawladnimo dadka bariga Somaliland degan haddana ilaah baa runta jecel waa laga eexdaa anigu sidaan aaminsanay dawladda maanta joogta waxaan kula talinayaa halka laga ogol yahay mashruucyada keentaan halka laga ogol yahay dawladnimada iyo dee halka u baahanba in la geeyo dawladda Somaliland waxa laga rabaa wadanku asliyanba ma aha in santarka la isugu soo ururo inay dawladnimada Hargeysa iyo hareeraheeda noqoto danta reer Somaliland iyo dalku ku toona kuma jiro ka dawladda waxa laga rabaa inay dalka ay isu dheeli jirto anigu xaq darraa baan u arkaa dadna way ka qaylinayaan anna waxaan leeyahay dawladihii Somaliland oo dhammi adeer dawladnimadooda galbeedka Somaliland bay ka jirtaa dawladda waxa laga rabaa dadka Hargeysa iyo hareeraheedu ma qaadayaan dalku waa inay
waxa Hargeysa loogu soo ururaya ee galbeedka Soomaaliland loogu soo ururay waxa way dawladnimadii baa ka jirta dawladda waxaan leeyahay wax kale inta aad iska dhaaftaan xoogga saara wadooyinka iyo isku xidhka dalka meeday wadadii ood weyne lagu ololeynayay dawladihii wadada ood weyne ku ololeynay kuwii horena waa ku ololeyn jireen tan waa ku ololeynaysaa maye meeday wadadii ood weyne dawladda waxaan leenahay de wax ku qorshaysan ma ogi anagu de inta yar baraabishada ka socotun baan aragnaa laakiin waxa baraha bulshada ka muuqda waa wax khaldan baa ii muuqda waxa ii muuqda dawlad weli galbeedun ku mashquulsan lagana rabinba runtii marka laga hadlo laakiin waa la iska rabi doonaa jaanis ha la siiyo wacyigelina ha la siiyo ha la iskana sugo dalkana baahidiisu waa badan tahay dhul kale oo badan oo bannaan baa jira halkaa ha lagu mashquul dadka galbeed bariga Somaliland degani waa dalka ay Somaliland ku dhisan tahay dhaqaalahooda iyo difaacoodaba haddana burco waa laga soo guuray waay dawladnimadii baa Hargeysa ku ururtay dawladda waa in la gaarsiiyo bariga Somaliland talaadayduna waxay tahay dawladay horta kow qorshe dheer sameeya wadada ood weyne waxay muhiim u tahay dhul badan oo culayska ka qaadi la Hargeysa kabaabigeeda dhul badan oo lagu soo hiran laayo ummadu maal gashan lahayd hadda lama maal gashan karo waayo wixii aad ka soo saartaa de gobolada dalka ma gaadhayaan wada xumada awgeed dhul fara badan oo qurux badan oo barwaaqo oo hodana oo biyale baa jira laakiin lama maal gashan karo waxaan u maleynaa in gobolka Sanaag ahaa mar dhaweyta meel aan daawanay oo la leeyahay tamaandhadu inta bislayn maxaan ku dhahay liintu inta bislaatay iska soo dhacdhacday xawayaan ku cunaa sababtu tahay wada loo mara male wadooyinka bariga Somaliland waa inaad dhisto si uu wadanku isugu xidhmo dekada berbera ummadoo dhan bay u dhaxaysaa waa qaran baa lagu dhisay magac qaran bay ku joogtaa magac qaran bay ku dhisan tahay laakiin de ma aha wadanka dekad kali ma anfaci karto runta marka la sheego wadanka dekad kali ma anfaci karto dekada mayr waa inaad hawl gelisaan laba wadada ood weyne hadii la dhiso waxa hawl yaraanaysa xitaa in dhinaca kirinka shanaad ee Soomaali dadkeenu degaan ay si hawl yar ugu xidhmaan qorshaha dheer waa inuu ahaadayna dawladda Itoobiya aad tidhaahdaan wadada metelan ka soo baxdayn gaashaamo iyo wada ka leexata maxaan ku dhahay ood weyne marka wadada ood weyne la dhiso wada kale laga leexin karaa Itoobiya iyo deegaanka Soomaalida waxa la oran karaa inta soo dhisa annaguna inta soo laamayaan u dhisayna idinkuna inta soo laamaya soo dhisa si la isugu xidhmo oo macni waxa laga soo saaro bariga Somaliland ay Itoobiya halka ka gali karaan ayaguna waxay soo saaraan bariga Somaliland si hawl yar ugu soo xidhmi karaan wadooyinka rafka ee maanta ka jira dhibaatay ku hayaan dadka marka dawladda waxaan leeyahay xooga saarota maxaa lagu dhahay ka damayd laba wadada ood weyne dhamme qorshe ku xidhaya wadada maxaan ku dhahay kilinka shanaad ku xidhaya halka dadka reer Somaliland degan yihiin ama Soomaalida kale ee Itoobiya waa inaa la shaqaysan dawladda kale
si ay u soo dhisaan waddo aynana dhankeena aynu dhisno la isku xidho si ay ummadda bariga Somaliland joogto ay ugu hawl yaraato inay maxaan ku dhahay waxay soo saareen halkaa geeyaan taa haddii dawladdu ay weydo shacabka bariga Somaliland iyo hawdka Somaliland ka soo jeeda idinkaa la idinka rabaa inaad la timaadaan qorshayaal iyo maalgashi aad dhulkiina maalgashanaysaan talan inkastoo ay dhici karto in ayaguba ay sida kuwa wajaale u hadlayaan ayaguna ay u hadlaan haddana anigu waxaan oran lahaa waxaan wajaale ay dadku diidan yihiin banka wajaale ha laga qaado culayska oo banka tuuyaa la geeyo dadka halkaa joogana ha loo diro dad wacyi geliya waxa la wadana ummadda ha la tuso si la isula fahmo reportka burco waa in usaani u shaqeeyo qorshana loo dejiyo inay maxayta haddii dayuuradaha hargeysa markuu dadku rakaabku kaga dego in dayuurad kaloo yaroo ka qaadoo la geeyo burco ay yeerato in qorshihii maxaan ku idhaahdayay buurta daalo ee dalxiiska la sameeyo dawladda waxaa laga rabaa dee bariga Somaliland in qorshayaasha ay ka leedahay noo sheegto annaga talabaad waxaan arkayay odayaal la leeyahay waa la xidhxidhay dawladda waxaan kala talinaynaa oon uga digaynaa inaan ummad hadlaysa iyo ummad madaharaadaysa iyo ummad wax qoraysa aan la xidhin waa qaab dictatornimo waa qaab qaldan dadku waa inay xaq u yeeshaan inay hadli karaan doodi karaan mudaharaadi karaan haddii aanay ujeedadoodu ahayn dee inay dadka ciyaamay dagaal la ridaan mid kale jirta ayana xalay waxaan soo qoray magac cusub oo magaado la yiraahdo soo baxay wax noocaas magaado waxa la waayeeyay oo reeraha isaaqbay qayb dhash qaybina waxa weeyaan habar jecel ayagana habar xabuushaad baa dhashay baa la yiri war waxina dhalayba waxaynu nahay reer isaaq la yiraahdo waxaynu nahay ummad reer Somaliland habartan iyo waxaan iska joojiyay dalkana qofku xaq uu leeyahay inuu yiraahdo gobolkayga waxa la galiyo iyo waxa laga qabto laakiin xaq ma leeyahay inuu yiraahdo halka ana iskalo dawladdu kama shaqayn karto sababtu tahay tee haddii aana dawladnimada ogolayn hadhowna ha ka cabanin dawladnimada hadda dawladdu qorshaha keenta aad diido oo qorsho walay keentaba aad diido hadhow ha ka caban dawladdu waxba ima qaban habarta iyo waxaana ha laga gudbo beesha habar jecelo iyo beesha habarawal iyo kuwa garxajis war ummaddu kow reer baynuna isaaq la yiraahdo Soomaali oo dhamina reer isaaq la yiraahdo inoo taqaanaa habartan iyo waxaan ka gudba dawladda cid la shaqaysan karaysa la shaqayso dawladdana waxaanu leenahay isu dheelitirkeen anigu halkan aan joogo waxaan arkaa isu dheelitir la'aan marka dawladda qorshayaal intan ka duwan hala timaado waxaana laga rabaa dadka reer bariga inay la yimaadaan rabitaan inay airportka burco toos u kiciyaan in ay maxaan ku dhahay dekada mayd hawlgeliyaan in ay dawladda ka codsadaan wadooyinka bariga Somaliland in la hagaajiyo dawladdu inay galbeed oo kaliya ka dhisnaato maaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh